filimkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay gabar lagu magacaabo Nina oo ka timi wadanka Belarus iyada oo soo gashay wadanka Mareykanka si sharci darro ah waxa ayna doonaysaa inay ka shaqaysato halkan laakiin waxa ay u geynaysaa guri ku yaala meel cidla ah oo uu leeyahay ninkan oo lagu magacaabo Luther waxa ayna doonaysaa inay gabadhan u shaqayso ninkan Luther balse Luther waa dilaa waxa uuna cunaa hilibka dadka bini'aadamka hilibkana waa ay shiitaan waxaana u keentay gabadhan oo lagu magacaabo Mary daawadayaal filimkeena maanta ayaynu guda geli doonaa waxaan si xushmad leh kaaga codsanay inaad muuqaalka like saarto channelkana subscribe tiraahdo filimku wuxuu ku bilaabanayaa gaarigan meesha cidlada maraya waxaana saaran gabadhan oo lagu magacaabo Mary waana gabar u shaqaysa dadka qaxootiga ee ka soo gala xadka Mareykanka sidoo kale xagga dambe waxa u saaran gabadhan oo lagu magacaabo Nina iyo sidoo kale gabadheedii yareyd Mary waxay u sheegaysaa inay badbaadin doonto mustaqbalkooda iyada iyo gabadheedaba halkan ay ka shaqaysan doonaan sharciyada iyo wax kasta ay u baahan yihiin ay heli doonaan waxa ayna u wadaa goobtii ay ka shaqayn lahayd Nina Mary gaariga ayay istaajisay Nina waxa ay soo dejisay gabadheedii si ay halkan ugu kaadsiiso ilaa markii dambe ay la soo gashay kayntan cidlada ah waa ay baqsan tahay waxayna maqlaysaa cod ka yeeraya kaynta isla markiiba way shakiyaysaa waxayna la soo cararaysaa gabadheedii gaarigii ayay dib ugu soo laabatay laakiin ninkan cabsan ayaa markiiba kusoo boodaya waxauna ka xiraya daaqada isla markii waxa uu ku leeyahay caawimada ayaa doonaya ilaa ay markii dambe iska turtay iyada iyo gabadheedii waxay soo galeen gaariga waxayna soo qaadeen wadadii ugu dambeyn Nina waxa ay timi gurigii ay ka shaqo bilaabi lahayd kadibna waxa ay fiirinaysaa gurigii ilaa ay markii dambe gaarigii ka soo degeen Mary waxay qarqaracaysaa albaabka si uga furo ninkan odayga ah ee guriga degan albaabkiina waxa furay odaygan oo lagu magacaabo Luther kadibna Mary ayuu salaamaya waxayna ku leedahay gabadhan ayaa ku wada waa gabar maskiin ah oo ka timi wadanka Belarus isla markiiba way salaamaysaa waxayna ka codsanaysaa inay gudaha guriga u soo gasho laakiin si wanaagsan ayuu u soo dhaweeyay waxa uu ku yiri soo gal guriga Luther gabadh yareed ayuu fiirinaya waxa uu ku leeyahay Mary anigu waa ogtahay ma qaato gabdhaha shaqaalaha ee wata caruurta laakiin markiiba Nina ayaa soo boodaysa waxayna ku leedahay gabadheedu wax dhiba ma samayso isla markiiba way ku qancinaysaa in gabadheedu aysan dhib lahayn laakiin markiiba waxa uu ku oranayaa waa idin aqbalay waa uuna saacbinayaa aad ay u faraxsantahay Nina maadaama ay shaqo heshay sidoo kalena heshay guri ay degto daaqada ayay ka macsalaameynaysaa saaxiibteedii shaqada keentay Laatur ayay aragtay kadibna waxay weydiinaysaa sawirkan meesha ku dhagan waana baciidkan geesaha waaweyn ee darbiga uu surtay laakiin waxa uu ku oranayaa waxaan ahay nin ugaarsada xayawaanka isla markiiba cabsi ayaa soo food saaraysa Nina waa uu soo kaxaynaya waxa uuna keenayaa qolkii ay degi lahayd iyada iyo gabadheedu aad ay u farxaysaa waxayna ku leedahay qolkan aad ayuu qurux badan yahay ilaa ay markii dambe weydiisay sawirka meesha ku dhagan waxa uuna ku leeyahay waa aabahay waxa uuna ahaa ugaarsada aad u weyn halkaas ayaa gabalkii ugu dhacay Nina iyo gabadheedii waxayna seexanayaan habeenkoodii kowaad halkan Nina hurdadii ayay ka soo kacday ilaa ay markii dambe aragtay in gabadheedii ay ka maqan tahay gadaasheeda dambe isla markii way soo caraysaa ilaa ay janjarta ka soo degtay laakiin waxay aragtay Luther oo gabadhii quraac siinaya waxa uuna ku canaananayaa inay waqtigii ay quraacda sameyn lahayd dhaaftay mas'uuliyadeediina ay gabtay isla markiiba way isku naxaysaa waxayna ku leedahay iga raali ahow gabadheedii yareed ay afka u galgelinaysaa laakiin markiiba Luther waxa uu ka oranayaa koobkan shaaxa ku jira cab kuna darso cuntada isla markiiba cuntada ay ku darsanaysaa Luther hal mar ayuu isku naxayaa waxa uuna maqlayaa cod ka yimi xagga hoose ee guriga isla markiiba Luther gabadha ayuu ku qaylinaya waxa uuna ku leeyahay xagga hoose ee basementiga albaabka laga galo ma furi kartid Luther isla markiiba albaabka ayuu furay waxa uuna gudaha u galay basementiga guriga ayay banaanka uga soo baxeen Nina iyo Luther iyo gabadheedii kadibna waxa uu barayaa seerahan aadka u weyn uu degan yahay isla markiiba waxay weydiinaysaa inuu guursaday laakiin waxa uu ku leeyahay weligay ma guursan halkan ayay soo istaagayaan waana qaybta hoose ee guriga waxa uu ku leeyahay albaabkan ma furi kartid Nina waxay ku soo laabanaysaa guriga iyadoo ciyaarsinaysa gabadheedii yareed waxayna gudanaysaa waajibaadkeedii shaqada ee loo igmaday mindi ayay soo qaadatay iyadoo diyaarinaysa cuntadii ay maanta cuni lahaayeen ilaa uu markii dambe Luther uu ka naxiyay kadib markii uu hilibkan halkan ku dhuftay waxa uuna ku leeyahay hilibkan maanta noo kari isla markiiba waa inaxaysaa waxayna fiirinaysaa Luther habeenimo ayaa la gaaray Lutherna waxa uu maqlayaa codka qufaca ee ka soo baxaya Nina kadibna uu imanaya waxa uu ku leeyahay hargab miyaa ku haya laakiin waxay ku oranaysaa maya waa caadi ilaa uu markii dambe u keenay sharaabkan kadibna uu ku yiri cab laakiin saaxiibayaal sharaabkani maaha sharaab caadi ah balse waa dhiig bini'aadan oo lagu daray waxyaalaha uusan qofku fahmi karin isla markiiba waxay ku leedahay waa uu macaan yahay sharaabkan waxa uuna ku leeyahay hurdo ayaa ka helaysaa qufacana waxa uu yahay daawo waa uu fiirinaya gabadhan si ay u cabayso ilaa ay markii dambe wareertay Nina waxa ay soo kortay jaranjartii waxayna u socotaa qolkeedii iyadoo madaxeedii uu wareersan yahay ilaa ay markii dambe sariirteedii ku dhacday halkaasna ay ku seexatay waagii ayaa u bariyay Nina iyo gabadheedii waxa ay diyaarinayaan quraacdii kadibna waxa ay afka u galgelinaysaa quraacdeedii gabadha halka Luther uu ku akhrisanaya buuggiisa halkan isla markiiba quraacdii ayay u gelinaysaa Luther waxa uuna ku leeyahay waa ku maasan tahay miiskan dhig ilaa uu markii dambe u soo qabtay sharaabkii waxa uuna ku leeyahay hargabkii ayaa ka bixi doona waa ina cabtaa
doontaa sharaabkan waana sharaabkii uu xalaysi waxa uuna ku leeyahay hargabku waa kaa bixi doonaa markii aan yaraa waxa uu siin jiray aabahay sharaabkan ilaa ay markii dambe sharaabkii cabtay waa uuna fiirinaya Luther Nina iyadoo wareersan ayay habeennimadii seexanaysaa waagi ayaa bariyay mar kale waana maalinnimadii labaad ay gurigan ku barido kadibna waxay banaanka ku gogoynaysaa qoryihii ay ka dhigan lahaayeen dabka isla markiiba Luther waa uu soo baxay waxa uuna ku leeyahay waa soo laaban doonaa waa inaad guriga sii ogaataa balse markii uu ka tagay Nina ayaa waxay hal mar arkaysaa ninkan qaylinaya ilaa ay markii dambe aragtay kadibna way cararaysaa waxayna la soo ordaysaa gabadheedii yareed iyadoo gudaha ula soo gashay maadaama uu Luther ballan kula galay inaysan qof bini'aadan ka furin albaabka inta uu ka maqan yahay guriga isla markiiba ninkii waa soo ordaya waxa uu ku leeyahay caawi laakiin guriga ayay soo xiratay iyadoo gabadheedii laabta gashatay Nina waxay ka arkaysaa daaqada Luther oo soo socda isla markiiba albaabka ayay ka furaysaa kadibna waxa uu soo galayaa guriga aad ayuu farxaysaa Nina maadaama adeegii guriga ka goonay dhan uu keenay kadibna waxay u sheegaysaa inay aragtay nin aad u qaylinaya ilaa ay markii dambe albaabka ka xiray Lutherna aad ayuu isugu naxaya waxa uu idinayaa waxa uu doonayay laakiin waxay leedahay ma garanayo albaabka ayaan ka xirtay maalinnimadii xigtay Luther waxa uu ku leeyahay indhaha qabso waxa uu keenay surprise ilaa ay markii dambe indhaha furtay waxayna aragtay in gabadheedii loo keenay hadiyad qaali ah ilaa ay markii dambe Luther ku soo booday kadibna laabta gelisay iyadoo laabta ku haysa ayay waxay gadaal dambe ka arkaysaa ninkii shalay soo weeraray iyadoo farta ku fiiqaysa ayay u sheegaysaa Luther inuu yahay ninkii shalay soo weeraray ninkiina waxa uu yimi gabadhii Nina waxa ay ku leedahay maxaad doonaysaa ilaa uu sheegay in gaarigiisii uu halkan kaga xumaaday kadibna uu doonaya caawimaad laakiin isla markiiba Luther ayaa madaxa waxa uu kaga dhufanaya bir kadibna waxa uu ku qabanaya qorigiisa oo kula yaa tahay ilaa markii dambe ay qaylisay kadibna uu sheegtay Nina in wiilkan uu yahay wiil caawimaad u baahan gaarigiisina uu kaga xumaaday wadada Luther isla markiiba Nina ayuu fiirinaya kadibna waxa uu soo gelinaya guriga ninkii Ninana waxa ay isku dayaysaa inay nabarkii soo gaaray ka dhaydo Lutherna waxa uu ku leeyahay ka raaliho wixii ku soo gaaray Nina ayaa daweynaysa ninkana waxa lagu magacaabaa Andres isla markiiba Luther waxa uu soo dhigay koobkan waxaana ku jira dhiigii bini'aadanka waxa uuna ku leeyahay cabitaankan Nina iyo Andresna waxay cabayaan cabitaankii ilaa uu markii dambe ninkii yaabay kadibna Andres waxa uu ku leeyahay Luther maxay tahay weligii ma arag shaax noocan oo kala ah laakiin Nina ayaa ku oranaysa waxa loogu talagalay dadka qufacaya ilaa uu markii dambe Luther qoslay Andres waxa uu ku oranaya Luther waxaan u baahanahay inaan caawa gaarigaygii farsamaysto si aan bariim u gaaro meeshii aan u socday laakiin markiiba waxa uu ku oranaya habeenimo ma bixi kartid maadaama ay bahla aad u badan halkan joogaan kumana caawin karo laakiin haddii aad doonaysid in bari lagu caawiyo waan ku raaci doonaa waana kula hagaajin doonaa gaariga isla markiiba Luther waa iska dhaqaaqaya waxa uu socdaa qolkiisii si uu seexdo dhammaantoodna waxay seexdeen habeennimadii gurigii isla markiiba qolkii ay soo galaysaa kadibna waxay arkaysaa buugan meesha yaala Nina waxay isku dayaysaa inay buugga kala furto ilaa uu markii dambe arkay Luther kadibna waa uu qaylinaya waxa uu ku leeyahay ma furi kartid buugga isla markiiba buugga ayuu ka qaadaya waxa uu ku leeyahay waxaan shaqadaada hayna qabsan isla markiiba waxay ku leedahay iga raaliho qalad ayaan galay laakiin waxa uu ku oranayaa caawa marti ayay imaanaysaa waa inaan dharkan guduudan xirataa martidana si fiican u soo dhaweysaa Nina waxa ay soo xiratay dharkii ilaa ay markii dambe jarjarta ka soo degtay iyada iyo gabadheediiba waxaana soo dhaweynaya Luther saaxiibadiisii oo dhan iyagoo aad ugu sacbinaya Andresna waxa uu joogaa xafladda ilaa markii dambe Luther uu ku yiri gabadhan waxa ay ka timi Belarus way ku farxayaan dhammaantoodna waa ay soo dhaweynaya ilaa markii dambe Andres iyo Nina ay u dhaqaaqeen xagga sare ee guriga kadibna waxa uu ku leeyahay Andres aniga ayaa qaadan doonaa shaqo fiicanna waa ku hayaa ee aniga i raac waxaan leeyahay meerad aad u weyneed ayaan ka shaqasiin doonaa laakiin waa ay ka diidaysaa waxayna ku leedahay halkan kama tegi karo ilaa markii dambe codkoodii maqlay Luther Andres ayuu imaanaya waxa uu ku leeyahay qolka hoose ee basementiga ayaan kaaga soo saari doonaa wax kasta aad u baahan tahay si aad u hagaajisid gaarigaagii kadibna waxa uu ku leeyahay soo bax isla markiiba waa ay soo dhaqaaqayaan Andres iyo Luther kadibna waxa ay soo galayaan qolkii basementiga ahaa ilaa markii dambe Andres aad isugu naxay isla markiiba Luther bir ayuu madaxa kaga dhufanaya kadibna waxa uu ku soo xiraya basementigii dib ayuu ugu soo laabanaya isla markiiba banaanka iyo guriga ka soo baxday waxayna raadinaysaa Andres laakiin way weynaysaa Andres ilaa markii dambe Luther yimi waxa uu ku leeyahay waa uu iska baxay gaarigiisna waa uu hagaagsaday laakiin waxay leedahay maxay tahay sababta uu yimi salaameyn waayay Luther waxa uu ku oranayaa Andres waxa uu ka soo jeedaa wadanka Colombia dadkiisuna ma fiicna isla markiiba waxa uu dhibaya koobkii cabitaankaasi ay u cabto waana dhiigii ay ku soo xijirtay Ninana waa ay wareeraysaa ilaa ay markii dambe kala garan weyday meesha ay joogto waa ayna seexatay subaxnimadii ayaa waagii bariyay Ninana waxa ay ku foldhaqanaysaa halkan Nina waxay hagaajinaysaa gurigii ilaa ay markii dambe aragtay dhibicdan dhiigga ay halkan taala isla markiiba waa ay fiirinaysaa waxayna arkaysaa inuu yahay waxana dhiig gacanta ayay ku taabanaysaa waxayna aragtay inuu yahay waxan dhiig laakiin markiiba waxay u qaadanaysaa Luther hilibkii uu shalay u keenay inay tahay qolkeeda ayay soo galaysaa iyadoo iska saartay dharkii subaxnimadii ayaa la gaaray waxaana bariyay waagii Lutherna waxa uu dhaqaaqay dhankaas iyo magaalada isagoo qaatay gaarigiisii way macsalaameynaysaa waxa uu soo gaday alaabtii guriga ka goonayd Ninana waxa ay soo gashay gurigii gabadheedii yareed halkan ay ku ciyaaraysaa ilaa markii dambe ay cod maqashay ka yareeyay dhanka hoose guriga isla markiiba albaabkii basementiga ayay dhigta saaraysaa waxayna arkaysaa inuu halkan cod bini'aadan uu ka soo baxayo faas ayay soo qaadatay waxaana isku dayaysaa inay albaabkan jabiso si ay u ogaato waxa gudihiisa ku jira isla markiiba albaabka ayay furtay waxayna gashay xagga hoose ee basementiga ilaa ay markii dambe aragtay Andres oo ku xirxiran kursiga aadna u cabaadaya Nina waa isku naxday waxayna u soo dhaqaaqay dhankii uu Andres joogay ilaa ay markii dambe ka furtay jawaankii madaxa uga jiray balse Nina afka ayay qabsatay ilaa ay markii dambe iska oyday waxayna aragtay waxaan suurtagal ahayn Luther waxa uu ka saaray labadiisii indhood Andres Ninana waxa ay soo qaadatay maqas iyadoo ka furtay sharootooyinka
ninkii ku xirnaa kaynta ayay soo galeen waxayna soo kaxaysatay gabadheedii. Andres waxba ma arko labadiisii indhood ay ka maqan yihiin waxayna ugu soo xirtay maradan, laakiin wax kasta waa isbedeleen. Lutherna waa uu ka daba yimi waxa uuna soo qabtay Nina isagoo gurigii dib ugu soo celiyay. Gabadheedii yareed ayaa toosinaysa hooyadeed si ay u kacdo ilaa markii dambe ay kacday waxayna gelisay laabta. Luther ayaa u soo galay isagoo cunto wada waxaana ka qaaday gabadhii. Way ooyeysaa waxayna ku leedahay albaabka ha igu xirin, laakiin albaabka ayuu ku xiray. Halkan ayay murugaysan tahay waxayna ogaatay wejigiisa dhabta ah. Habeennimadii ayaa la gaaray. Ninana waxay ku xirxiran tahay weli qolkii, laakiin hal mar ayuu albaabka furay isagoo geesa wata. Waxa uuna u soo galay Nina, isla markiiba Nina ayuu soo kaxaynaya waxa uuna ku leeyahay gal suuliga. Waxa uu ku amray in dharka oo dhan ay iska bixiso, laakiin way diidaysaa. Waxa uuna ku leeyahay waan ku diri doonaa haddii aad amarkayga diidid. Waxa uuna rabaa inuu marsiiyo ciqaab. Waaskada biyaha ayuu ku yiri dhex fariiso ilaa uu markii dambe biyihii ku ceejiyay. Waxa uuna uga dhigay ciqaabtii khaladkii ay shalay gashay. Isla markiiba biyaha ayuu ka soo saaray waxa uuna ku leeyahay dharkaaga xiro. Waa uuna iskaga tegayaa. Luther waxa uu soo galay qolkii basementiga kadibna waxa uu halkan ku shiidayaa hilibkii Andres. Waxa idin muuqdana waa hilib qof bini'aadan ah. Isla markiiba qolka ayuu ka soo baxaya. Lutherna waxa uu hilibkii Andres ka sameeyay cunto ilaa markii dambe ay saaxiibadiis u yimaadeen kadibna uu sameeyay casumaad. Halkan Nina uu ku xirxiray kursigan halkan idinka muuqda. Gruubkani dhammaantood waa ay fiirfiirinayaan halka Luther uu ku dul akhrinayo buugga. Waana qaacido u dhagan ka hor intaysan cuntada cunin inay buuggan ku dul akhriyaan ilaa uu markii dambe Luther ka qaaday saxankii halkan yaalay daboolka waana madaxii Andres. Waa isku naxday wayna qaylinaysaa Nina iyadoo afka ka xiran ayay qaylinaysaa. Dhiiggiisa ayay wada cabayaan dhammaantood aad ayayna u faraxsan ilaa markii dambe islaantan ay ka furtay marada laakiin waa ay ku matagtay. Waa ay qaylinaysaa waxayna ku leedahay naagtan nooga celi meesha hoose ee basementiga. Isla markiiba Luther waa uu soo istaagaya waxa uuna si khasab ah u kaxaynaya Nina ilaa uu markii dambe geliyay xagga hoose ee basementiga. Kursigan ayuu ku fariisiyay waxa uuna afka kaga xiray sharooto. Gabadheediina waxay qabsanaysaa indhaha ciqaabta hooyadeed ma daawan karto ilaa uu markii dambe ka baxay. Laakiin gabadhii waa u imaanaysaa waxayna ku leedahay hooyo iga fur afka ayay ka furaysaa hooyada ilaa markii dambe maqaskan ay u keentay si ay isaga furfurto sharootooyinka ku xirxirnaay oo dhan. Way soo istaagaysaa waxayna kala xulanaysaa qalabkii ay qaadan lahayd ilaa markii dambe lugta ay ku xiratay mindi. Gabadheedii yareed ayaa u keenaysa qorigii Luther qorigii ayay qaadanaysaa waxayna diyaar u tahay dagaal inay iska celiso dadkan. Ninkan ayaa guriga dib ugu soo laabanaya ilaa ay markii dambe ku qabatay qorigan waxayna ku leedahay istaag laakiin wuxuu isku dayayaa markiiba inuu soo dhaqaaqo dhankeeda ilaa markii dambe caloosha kaga dhufatay xabad. Waa ay ka dhaqaaqday laakiin waxa uu qabsaday lugta waxayna ku dhamaynaysaa qorigii. Waa ay soo carareen waxayna maqleen xabad dhacday ilaa ay markii dambe gurigii soo galeen. Ninana waxay u soo carartay dhanka kaynta iyada iyo gabadheedii ilaa markii dambe Mary ay ku soo orday kadibna waxay ku dhufatay mindi gacanta ayay ka sartay. Nina isla markiiba waa ay ku soo orday iyadoo mindi caloosha ka gelisay ilaa markii dambe ay qoorta ka jartay waxayna ka aarsatay Mary. Maryna halkaas ayay ku dhimatay. Waa ay soo cararaysaa iyadoo qorigeedii wadataa ilaa ay markii dambe iyada iyo gabadheedii ay soo galeen qolkii basementiga. Albaabka ayay xiranaysaa iyadoo silsilad ku xirtay ilaa markii dambe albaabkii uu soo qarqaraacay Luther. Luther ayaa albaabkiisa ka furay isagoo geesihiisa wata laakiin waxay ku leedahay soo dhawaan waa ku diri doonaa haddii kale. Laakiin nasiib darro qorigii ayaa xabadii ka dhamaatay. Lutherna isla markii waa uu ku soo boday waxa uuna qabtay qoor ilaa uu markii dambe ku xiray sanduuqan halkan yaala. Ninana waxay isku dayaysaa inay iska furto sanduuqa ilaa ay markii dambe sanduuqii ka soo baxday. Lutherna halkan ayuu taagan yahay waxa uuna raadinayaa gabadhii yareyd. Waa uu soo waayay ilaa uu markii dambe Luther gurigii dib ugu soo laabtay ilaa uu markii dambe armaajadan furay kadibna waxa uu arkay gabadhii yareed oo ooyeysa laakiin Nina ayaa dusha kaga timi iyadoo isku dayaysa inay gabadheeda yarta badbaadsato. Isla markiiba qoorta ayay qabteen ilaa ay markii dambe jarjarta iskala dhaceen. Geesii ayaa ka jajabay Luther ilaa markii dambe mid kamid ah geesihiisii ay ku dul dhacday Nina waxaana soo gaaray dhaawac aad u daran. Lugteedii oo dhan ayaa dhiig ka baxay waxayna isku dayaysaa inay weli iska difaacdo Luther. Lutherna waxa uu ka saaray lugta meeshii ay dhaawac ka ahayd ilaa uu markii dambe qoorta qabtay. Dhulka ayuu jiifiyay ilaa uu markii dambe labadiisii gacmood isugu geeyay qoorta Nina waxa uuna doonayaa inuu nafta kaga qaado laakiin markiiba mindidii lugta ugu xirnayd ayay la soo baxaysaa iyadoo qoorta ka gelisay. Lutherna mindidii waxay ka gashay meel halis badan ilaa uu markii dambe dhulka ku dhacay. Waxa uu isku dayayaa inuu soo kaco laakiin markiiba mindidii ayay qaadanaysaa iyadoo meel kasta ka gelisay mindidii. Gurigii oo dhanna waxa uu noqday wada dhiig. Lutherna halkaas ayuu ku nafbaxay. Gabadheedii yareed ayay quraac siinaysaa waxayna soo qaadatay gaarigii Luther. Daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayuu kusoo gabagaboobay. Fadlan qaybta hoose commentiga nagula wadaag fikirkaaga. Waa ku mahadsantahay markale daawashada muuqaalka waran haddii ay kugu dhac lahayd sidan oo kale.